بسم الله الرحمن الرحيم داودياشا شرفت له ku xiran barnaamijka Halabaar waxaan ku soo dhaweynaynaa mar labaad barnaamij kale oo xiiso badan oo aan kaga hadli doono biyaha sidaan hore idinku ballan qaaday waxaan ka hadalnay biyaha saameynta caalamka ku leeyihiin biyaha Soomaaliland ku jira dhulka hoostiisa marka maanta waxaa martiin oo ah injineer Mustafa Saalax oo ku takhasusay geophysics sidoo kalena bartay culuum kale oo kala duwan isaga caawa ay ka wareysanayna barnaamijka biyaha ku soo dhaw Mustafa barnaamijka waxaan ugu horreyn ku weydiinayaa inaad si guud u faahfaahiso sida ay biyuhu samaysmeen iyo halka ay ka soo jeedaan aad baan ugu maana barnaamij sano qaana qabanaa aad loo tahay muhiim u tahay dadka iyo dalka biyaha marka la yiraahdo inaguna galowga halkaynu kaga naalno leego waxa weeyaan shay aynaan sina marnaba u dhiirsan karin marka waxaan aad idinku mahadnaqayaa barnaamijkan oo kale sidan oo kale inaad qabataan oo ummadana waxyaalo badan aynu u bayaanino siiba biyaha noocyada biyaha ee dhulkeena ku jira halkaan soo noqdo su'aashani aad ayay adduunka ugu soo noqotay siiba 4.5 bilyan oo sano horteed waa waqtigii ay iraahdaan culimada sayniska ay iraahdaan singularity ayaa jiray macnaheedu waxa jiray bay iraahdaan kudlad yar oo gravity si yar isku haysata kadibna taa ayaa qarax samaysay qaraxii markaasi samaysmay ayaa waxa ka samaysmay bay iraahdeen curiyaashan imika aynu naqaano hal curiyo kamid oo ah nitrogen baa samaysmay nitrogen-tii baa haddana isku dhacday helium baa samaysmay helium-kii baa haddana isku dhacay lithium buu sameeyay lithium-kii baa isku dhacay boron buu sameeyay boron-kii baa isku dhacay waxa uu haddana samaysmay haddana carbon curiyaha toddobaad periodic table-ka markaad eegto curiyaha toddobaad ayaa markuu ku taagnaa ayaa wax soo gasho oxygen